marka inagu halkaas kasi aan baqaadina bal maxaad ku dari lahayd qodobkaas maxamed Cabdullaahi waa aad baa u mahadsan tahay si fiican baad u dhigtay kala duwanaanshahaas waa jira laakiin inaga waxaad moodaa in isaga keen qasan tahay qaskaas aad moodaa in arrimo isu keen qasan yihiinna waxay keentay wax badan oo kharibaad ah ayay keentay tusaalahaas anoo raba inaan sii caddeeyo waxaan ku qeexi karaa tusaale ahaan Soomaaliya waddanka la yiraahdo waxa uu madax banaanadiisa qaatay oo dhameystiran sanadkii 1960 ayaa waxa dhisantay waxa la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya 60 markii ay dhisantay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ama Jamhuuriyadda Soomaaliya markii ay 60 dhisantay inta aad sheegtay oo dhan way lahaayeen sida xuduud la yaqaan dad la yaqaan oo halka degan oo Soomaaliya ciidan dastuur intaba way lahaayeen 30 sano kadib xukuumado kala duwan oo soo maray dalka waxaa dumay ama meesha ka baxay nidaamkii maamul ee dalka ka jiray isbedel laba jeer uu dhacay oo markii hore nidaamku ahaa nidaam dimuqraadi ah oo dadku is dooranayaan markii dambana 12 sano waddanku uu talinayay nidaam military ah ama ciidan ah oo uu talinayeen 90 ugu dambeyn nidaamkii dawladnimo ee dalka meesha waa ka baxay halkaas ayaa marka waxa ka dhacday in dadku iyagoo aan kala garanayn waxa meesha ka baxay xukuumaddiiba soo dawladnimadii iyagoo aan kala garanayn ayaa wax kasto dawladdu lahayd ama wax kasto qaranku lahaa waxa loola dhaqmay sidii in xukuumaddii dadka madaxda ka ahaa ama xukuumadda dadkii hogaaminayay inay lahaayeen waa meesha ay ka dhacday in maaragtay bangiyadii iyo xarumihii dawladda iyo wax kasto dadku lahaa ama maaragtay la wadaagay in la dhaco iyadoo aan la garanayn waxan yaa lahaa marka waxaan isleeyahay haddii dadku garan lahaayeen xukuumad iyo dawlad ay kala garan lahaayeen taasi ma dhacdeen sidoo kale waxaa tusaalaha labaad noqon kara 91 ilaa 2000 tobankaas sano ma aysan jirin wax la yiraahdo xukuumad Soomaaliya kama aysan jirin laakiin dalku sida kale shuruudihii dawlad lagu noqon lahaa qaybo kamid ah waa haystay oo kuwa hadda aad tirisay kamid ah waxa kamid ah in dalku uu yahay dal xuduud leh oo la garanayo waa dadkii degan yihiin oo la yaqaan deegaanadii jiraan la yaqaan oo maaragtay caalamkuna sida uu aqoonsan yahay qaramada midoobay midowga Afrika jaamacadda Carabta Yurub iyo Mareykanka wuxuu dhan ay aqoonsan yihiin sida daraadeed iyadoo ay xukuumaddii maqan tahay ma aysan dhicin dalka in la qabsado ma aysan dhicin dal ixtiraamo oo la og yahay inuu safarin yahay oo madax bannaan buu ahaa waxa lagu dhowrayay dal jiru ahaa laakiin xukuumaddu way maqan tahay ugu wixii ka dambeeyayna xukuumaddii baa la dhisay 20 sano aynu soo dhaafnay xukuumado kala duwan baa soo maray ayaa waddanka soo mariyay laakiin dawladnimada Soomaaliya from ama laga soo bilaabo 60 ilaa haatan way jirtaa heerarkeedu maaragtay kala duwanaado iyo dhibaatooyin maaragtay adu waqtiyo kala duwan soo qaadato laakiin wax dawlad leeyahay marna dalka lagama waayo laakiin waxa mar la waayay mar daciifayay wax la yiraahdo xukuumad laan dalku ahaa marka intaas ku dar lahaa aad buu mahadsantahay ustaad caynta ustaad maxamed aad iyo aad buu u soo koobay si wanaagsan buu nooga dhaadhiciyay in Soomaaliya ahayd dal dawlad ah waligeed ilaa 60kii ay ahayd
laakiin ay dal dawladdiisu dhaawac tahay oo dhibaatooyin haysato sida ciidankii oo kale ka maqnaa oo xuduudihii dalka difaaci lahaa waxa ka maqnayd xukuumaddii marka dalku markuu sidaa ahaa dadkeena maanta markaad fiiriso waxaad arkaysaa hadaad u kuur gasho doodaha ay dadku sameynayaan ama social media ay isu marinayaan ama maqaaxiyaha iyo fadhi ku dirarada markaad fiiriso dadku waxay leeyihiin dawladdan xun dawladdaas sida dawladdii hebel dawlad marka magaca dawladda magaca dawlad ayaa isku fuuqsaday labadii macne kala duwanaa haddii saa tahay lafteedu saameyn intee leeg bay nagu yeelata Abdullah ma san tahay mar kale dabcan dawladnimadu waa shay ama qaab wax heykal leh marka dawladnimadu waxaa la yiraahdaa waa wax la dareemayo magaca dawlad markii la yiraahdo dawladaha ayagoo dawlad wada ah bay haddana markaad sii dhuxdo macnahaan bay sii kala duwan yihiin tusaale ahaan markaan ka hadlayno Soomaaliya ama aan ka hadlayno Kenya ama aan ka hadlayno Djibouti ama aan Ruushka aan ka hadlayno waa dareemi kartaa farqiga dawladnimada u dhaxaysa sax laakiin dawlad weyn dawlad yar dawlad xoog badan dawlad maarata daciif ah sax weey marka waxa laga markii dadkeena in qofka markuu Soomaaliya afka kale u yiraahdo Soomaaliya dawlad kama jirto macna markuu Mareykanka tagan u yiraahdo dawlad ka jirto laakiin فعلا حقيقة أساس ما معنا حقيقة waxay tahay dawladnimada Soomaaliya sida saaxiibkay Maxamed Qadaaqo Soomaal u sheegay dawladnimada way jirtay way jirtay waxaan dilo kuwa ah saashini koodii 26 January laga soo bilaa ilaa 2000 inta laga qabanayay midnimada Soomaaliya wixii ilaalinayay waxay ahaayeen dawladihii kale dunida ka jiray ee Soomaaliya dawladnimadeedu u ixtiraamsanaa marna ma jirin ciidan Soomaaliya xoog dadka Soomaalida xuduudaha joogay sirdoon shaqeynaya ma jirin ilaa haddana taana وعمدي كليو من نمو الصومالية يكون جلتي يخدي لك كان إن حاجات تقلل ووصل ما دام حدودها بيلها أيهين هو ذا بدي يكون فريين وحكنا الدنيا إن البدعمين بدحوينها هي حكومة ديسة وحال سكولة لان تفلنت شرع دجنت إيه فلنت إذا صار كوي موت نعم مركب فلنتاس وهي أدى الله كشيء إن دتك قناعة أم واحد من إيجارسيس نعم مركب قف مركب وأكو زيرك عافمات كون اسبتالكي عافمات أنا ذيك عافمات بحنين أما زيرك تمرت أما بيوك عندك بي نذيف عن سنين معناها ما هندول لما ذي نحنتها حفيظ كان لا تنفلنته وزيرك شقيني حكومة الجوك تبع معناها صورته إنه واحد ذاك جاري الدول لما Soomaaliya وزارة اسمها محمد يعني حفيظ كل وزارة حفيظان محمد حفيظ خوف جلية أديك قد بني أحكام استقامين أما حزيادني أما بقول كي بقول مش نوطي الحجيني تاسو أتمنى بدابي سيد رادد دولده أديها جوجا دولد ما كاسوا أديها دولده وفعلا ذلك حن Soomaaliya حنجينا بدابي حيتين دولد وأيجا نعم كان أنا أقول شقينه مثلا لقيت كوي لما تنصر ودك كعاني عندما يقبض بدك حاجة مثلا يجيبها تلك الدولة فايد بها كجرتي تلك الشعب أيجا أود بيصلها حتى طبعا يحب ملكي كده الدولة كتبت الراتب ضعيف أسكات لكن أيها والدولة دي أسكال وحلا معنا دي وحلا صدورين الدجاج دي قبائل دي بصدورين مصبر حفرجين إيش شيء تلك الشعب الصوماليات لا بش وين أكل عاداتها لا أنت فلنت حدي ألاقي لدوني يقدمون ويسو دول لماذا محبة حكومة نعم حكومة دي بحن وشغالة قبسين ويا دتك الله إجماعي أنا شغالة قبتها كسيح ذي مركب وين يجا سيدي لوتو سين لها لقى شقاية مركب تعرف حكي سالسان وإن لغو بيريا ليقع صبع عقل لغو بيريا ولغو بيريا كرتي وهذا من لغو بيريا ما كان سالي ستاس إن أي أنت لو سود دولو إن معنا حفيز الصوت قال أم حفيز والله صار مع مكينيس والله من أكفر إن برلمان كاس ذاك الجوج إنه لا أنت فيلنته وقفت الشقة دي وحق أولها ودي سلك السيني سي حكومة ونقطة حكومة شقينا صار فيش نسيلها معناها لا ولا قيصر ومدي معناها هذيك بعد ما يقول بينيس أما هذيك السكالس أنت دور شيء صار تحل يدي لا جاري كده Soomaaliya waxa oran lahaa dawladda marka soo maxay hay aad filiid u baa baa laga yaabay adiga la baa ka gaabinaysa